السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن دمانتي مداوديال ku soo dhawaada wartaan YouTube ku leenahay ee qalqallo studio. Hadda idin ka raali gelinayaa muddadii aan hawada ku kala maqnayn arma shakhsiyeed awgeed. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channel-keena subscribe saar, like and share na ku qabo. Barnaamijkan maanta wuxuu ku saabsan yahay qofkii koowaad oo ka soo booda masaafo aad u dheer hawada sare ah. inuu dhashay dalka Australia ayaa ka yaabay dunida kadib markii uu meel ka baxsan gobolka oogada dhulka ama gaarsiisan goobta loo yaqaan space kaga soo booday isagoo ku socda xawaare ka dheereynaya guuxa. ninkan oo lagu magacaabo Felix da'diisuna ay tahay 43 jir waxa uu sii raacay markii hore buufino ku shaqeynaya gaaska heliumka loo yaqaan taas oo kaga baxay gobolka sare ee oogada dhulka kadibna si xor ah isaga oo aan wax xijinaya jirin isaga soo tuuray halkaas markii uu gaaray bootada. ninkan oo dad badan aaminsanayeen inay tahay mid qad iska tuurnimo ah ayaa dadkii qabanqaabinaya ay wadnaha farta kaga hayeen in Felix uu dhulka ku soo noqon kari waayo ama cilado farsamo dhacaan, laakiin waxa uu ninkan ku guuleystay in uu si caadi ah oo badqab ah dhulka ugu soo noqdo. ninkan ayaa doonayay inuu jabiyo Afrika oo hore dunida uga yaalay kuwaas oo ay ka mid ahaayeen ku dhigista la isticmaalo nidaamka kapsoolka ah ee codbixiyeenada dhulka ku soo degaan marka ay hawada hoos soo galaan iyo rikooro kale oo hore loo dhigay waana uu ku guuleystay inuu jabiyo rikooradaas. ninkan reer Australia markii uu soo gaaray meeshii loogu talagalay waxa uu ka yaabiyay dad badan oo aan markii hore aaminsanayn inuu nolol ku soo gaarayo dhulka. markii dhulka soo gaaray dadkii waxay isku dareen sacab iyo farxad ay ku soo dhaweynayaan ninkaas. inkasta oo xirnaa dharka kuleylka iyo gubashada ka celiya aadamiga ay xidhaan cirbixiyeenada, haddana waxa uu halis ugu jiray Felix in uu guban karo heer kulka uu jarayo oo dhalin karayay dab. marka loo eego goobta uu ka soo booday waxa kale oo suuragal noqon karaysay in uu xadkaba ka baxo oo kor u dhaafo oxygen-ka oo wax ka yar dhowr taako u jiray. waad ku mahadsantahay daawashadaada. fadlan sii share garay, like and subscribe na ku qabo.